Bismillahirrahmanirrahiim wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta Naafic Show. Waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa ku dhawaaqday maraakiib dagaal oo uu hogaaminayo markab xambaara diyaaradaha iyo nukliyeerka ee USS George W. Bush iyo ciidamo dheeraad ah in loo dirayo Bariga Dhexe, xilli ay horey usii joogeen maraakiibta xambaara nukliyeerka iyo diyaaradaha dagaalka, iyadoo joogitaanka Mareykanka ee Bariga Dhexe lagu sheegay waqtigan in uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyay taariikhda oo dhan, sida uu wariyay wargeyska Wall Street Journal. Go'aankan waxa uu soo baxay saacado kadib markii uu soo dhammaaday kulan 3 saac socday xalay oo ay yeesheen Trump iyo Netanyahu, walow Trump uu sheegay inuu ka aragti duwan yahay Netanyahu marka laga hadlayo xaaladda Bariga Dhexe oo uu nabad iyo wadaxaajood ku wajahayo. Haddana dhaqdhaqaaqyada waxa ay buuxiyeen suurtagalnimada dagaal ka dhaca Bariga Dhexe, mid aan la iska indhatiri karin. Baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto, waxna lagu barto, laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifaya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kuu baraya macallimiin xirfad leh, iyadoo xoogga lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo kuu horseedo, ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp-ka ee hoose. Ali Larijani oo ah la taliyaha sare ee hogaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa u sheegay Al Jazeera, "Waxaan isku diyaarinay weerar kasta oo lagu soo qaado Iran inuu noqdo mid aysan xakameyn karin cidda soo qaaday. Haddii Mareykanka uu bilaabo weerar, isla markiiba si degdeg ah ayaan u garaaci doonaa saldhigyada uu ku leeyahay Bariga Dhexe."